qof baad mustaqbalka rabtaa ood maanta la sheekaysataa 3 jeer ilaa 2 jeerna niyadda waa ka jabiya asbuuci rag iyo dumar ku doonaba ha noqdo qofkaasu hadduu ku quuray inuu waxa dhibsatid sameeyo asbuuci 2 jeer ilaa 3 jeer oo asbuuci ilaa 3 jeer 2 jeer waqtigaagu waa qaali san soo sheegnay enerjigaagu waa qaali naftaadu waa qaali ma mudna inay ku baxdo qof murugadii oo meel inta fariisatid dhafoorka qabsato ka fakartid oo naftaadu ay cabsi ka buuxsanto oo aragtid qofkana dad ka tagtid nolosha inaad qof kale arkayninba dead end meeshii ugu dambeysay noloshaada sidii inaad taagan tahay oo kale oo qofkaas sidii inay katiinada kuugu xiran yihiin aad waliba rajo ka sii qabtid mustaqbalna la wadaagtid adoo maanta asbuuc walba muran ka bixila taasu ma aha natiijo wanaagsan kuma tusayso mustaqbal iftiimaya inuu ku soo bixi doono waxa soo bixi doona mustaqbalka in badan dadku ay dareemaan markay guursadaan oo ah gumaysi iyo ciriir baan ku noolahay haddii qofka marnaba aadan ka arkaynin in uusan wax horumar lahayn oo horumarkaaga oo dhanba uu ka digdhigayo oo uusan kugu kaalmayninin oo uusan kugu taageersanayn qaabka aad u nooshahay nolosha waxba noloshaada stress ku dilin ma mudna inaad enerjigaaga iyo waqtigaaga ku bixisid qof bini aadama qofku waa inuu dhiirigelin ku noqdo waa inuu ku noqdo qofku farxad geliya waa inuu noqdo qof kugu kaalmeeya hadafka iyo yoolka aad doonaysid inaad gaartid waa inuu noqdo qof markaad murugaysan tahay aad farxad ka raadisid ma aha mid markaad murugaysan tahay iyo markaad faraxsan tahayba murugo kugu soo kordhinaya sida darteed dadka kugu wareegsan gaar ahaan kuwaas dadka ay ka mid yihiin oo aad maanta dareemaysid in aad ku xiran tahay cabsiduna ay kugu jirto qofkan hadaa ka tagtid malaha qof kale ma helaysid maxaa yeelay waan jeclahay dadka noocaasi noloshaada ma mudna inaad waqtigaaga iyo enerjigaaga ku bixisid waana waxyaabaha ugu qaalisan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay hadaa doonaysid inaad ku bixisid wax qaaliya meelna waxaad ku bixisaa cid qaaliyo mudan waxaad ku bixisaa cid mudan oo istaahil oo ah shayga